tani waa diyaarad aan duuliye lahayn ama haddii aan si kale u dhaho waxa lagu naanaysaa diraaga daahsoon ee ay dalalku maanta ku tartamaan gacan ku dhigiddeeda. qofka hagaya wuxuu fadhiyaa xafiis meesha ay duqaymaha ka geysanayso ka fog 100 kiiloomitir. waxay rabto ayay burburinaysaa ciidamo dhan oo gaashaaman ayay daakum ka dhigaysaa. kadibna waxay si tartiib ah ugu noqonaysaa xeradii ay ka timid. waqtiyadii hore waxaa goobta dagaalka lagu kala guulaysan jiray sida loo kala ciidan, hub iyo saanad badan yahay ama lagu kala dheereeyo xeeladaha dagaalka. hubkuna waxa uu ahaa inta uu qofku markaas sito, halka dagaalka maanta ay hoggaanka u qabato cidda awoodda ku leh duulaanada cirka. soo ifbixidda daroniska ayaa noqotay mid wax kasta ka leexisay jidkii lagu yaqaanay. magaalo, dhufaysiyo iyo guutooyin dhan ayay burburin kartaa waqti yar gudihii. ma leh duuliye la socda, waxay xambaaraysaa hub culus, hab muuqaal fogaan arag ah ayayna ku toogan kartaa duuniyo iyo dadba wixii bartilmaameed u ah. muuqaalkeenna maanta ayaynu ku dul istaagi doonnaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroniska, inagoo eegi doonnaa sooyaalkooda, sida ay fagaaraha dagaalka wax uga beddeleen iyo halka la filayo mustaqbalka inay horumarintoodu gaarto. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Waaberi Media. ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. inta aynan u gelin muuqaalkeenna, ha ilaawin inaad leeg inoo saartid lana wadaagtid asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran. dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, duulaanada Maraykanku ka geysto qaybo badan oo dunida muslimka ah, dagaaladii adkaa ee dhex maray Azerbaijan iyo Armenia, dagaalkii waqooyiga Itoobiya ee dowladda iyo jabhaddii Tigreega u dhexeeyey, intuba waxay ka siman yihiin adeegsiga diyaaradaha daroniska oo geystay duulaamo ay ku adag tahay ciidamada caadiga ah inay fuliyaan. Ruushka ayaa Ukraine ku weeraray diyaarado yaryar oo bambooyin xambaarsan oo u shaqaynaya sida ismidaaminta oo kale. Maraykankuna wuxuu si joogto ah duqaymo uga geystaa Suuriya, Lubnaan, Yemen iyo Soomaaliya, isagoo adeegsanaya diyaaradahan aan duuliyaha lahayn, taasi oo meesha ka saartay baahida ah in ciidankiisa uu geeyo goobta uu rabo inuu duulaanka ka geysto. Azerbaijan markii la loodin waayey Armenia, waxay hilka ugu weyn ka heshay Turkiga, kaasi oo fagaaraha keenay diyaaradda dunida ka yaabisay ee Bayraktar TB2 oo jilbaha dhulka ugu dhufatay Armenia, kuna qasabtay inay guuldarro qaadato. Daroniska oo sidoo kale loo yaqaano UAV ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waa diyaarado noocyo kala duwan leh oo qabta shaqooyin dhowr ah sida basaasidda iyo duqaymaha. sidoo kale waxaa jira kuwo loogu talagalay waraabka beeraha, muuqaalqaadidda iyo warbaahinta. noocyada ugu qaalisan uguna muhiimsan oo noocyada loo adeegsado basaasidda iyo duqaymaha meesha fog laga hagayo. fikradda soo saaridda diyaaradaha noocan ah ayaa soo bilaabatay waqtiyo u dhow dagaalkii koobaad ee dunida ilaa laga soo gaaro kontameeyadii qarnigii horena. waxaa marba soo bixi jiray hub fudud oo meel fog laga hagi karo. noocyada daroniska ee waqtigaa jirana waxay u badnaayeen kuwo wax basaasa oo keliya. markii uu dhammaaday dagaalkii Vietnam, waaxda difaaca Maraykanka ayaa sheegtay inay isticmaashay noocyo daronis ah oo aan horey loo tijaabin, kuwaasi oo ay u adeegsatay burburinta difaacyada ciidanka Vietnam. dagaalkan ayaa noqday halkii ugu horeysay ee laga diiwaangeliyey isticmaalka daroniska nooca hubka xambaara. hagidda iyo maamulidda daroniska ayaa waqtigaa ku koobnayd tilmaamaha hirarka raadiyoga oo jihaynayay daroniska. awoodda wax arag ee kaamiradana ma lahayn. sanadkii 1973 hay-adda Maraykanka ee agabka difaaca soo saarta, loona yaqaano DARPA, ayaa soo farsamaysay noocii ugu horeeyey ee daroonno ah oo gantaallo waaweyn xambaari kara, kana baaxad weyn kuwii hore. waxaana isla sanadkaasba loo adeegsaday dagaalkii Carabta iyo gumaystaha Israa'iil ka dhex socday. diyaaradaha daroniska oo horumarinno xawli ah lagu waday ilaa waqtigii ay soo baxeen ayaa awooddooda waxa aad looga arkay markii uu Maraykanku bilaabay dagaalkii uu u bixiyey la dagaalanka argagixisada ee bilowday kadib bishii 9aad 11keedii sanadkii 2001. Pentagonka Maraykanka ayaa soo bandhigay daroonno ku qalabaysan kaamirooyin masaafo aad u sareysa wax ka arki kara oo xajmi ahaanna aad u yar, iyo noocyo cusub oo xambaari kara gantaalada, lehna awoodda soo gudbinta muuqaalada iyo in uu si xeelad dheer shiishka ula helo bartilmaameedkiisa.
daroonnada basaaska ee Maraykanka waxa ugu caansan nooca loo yaqaano Raven oo sida laptopka boorsada lagu qaadan karo balse leh awood fogaan arag oo aad u sareysa. Pentagonka Maraykanka ayaa la sheegaa inuu yahay waaxda difaac ee ugu isticmaalka badan adduunka oo dhan droniska, iyaga oo ku howlgala wax ka badan 10,000 oo daroon oo basaasid iyo weerar qaadid ah. Dagaaladii Afghanistan iyo Ciraaq ayaa si joogto ah waxa warbaahinta loogu arki jiray diyaarado aan duuliye lahayn oo duqeymo ka geysanaya bartilmaameedyo uu Maraykanku ku tuhmayay kooxaha ka soo horjeeday basaasidda iyo ka qaadidda muuqaallo iyo sawirro goobaha ciidanku aanu gaari karin. ayay diyaaraddan kaalin weyn ka geysatay. Muddo dheer ayay soo saaridda droniska waaweyn ee wax duqeeya ahayd mid ku kooban Maraykanka iyo dalalka la xulafada ah sida Ingiriiska oo cilmi baarisyada lagu horumarinayo diyaaradahan waqtiyada qaar qayb kula ahaa Maraykanka. Dalal kale ayaa iyaguna dhankooda ka soo galay kacaanka soo saaridda droniska, kuwaasi oo safka hore ay kaga jiraan Shiinaha, Ruushka, Turkiga, Hindiya iyo Iiraan. daroonta Turkiga Bayraktar TB2 ayaa caalamka kaga yaabisay awooddeeda sareysa iyo qiimaha lagu farsameeyo oo wax badan ka qiimo jaban kuwa Maraykanka. wacdarihii ay ka dhigtay dagaalkii Nagorno-Karabakh ee Azerbaijan iyo Armenia sanadkii 2020 ayaa ahaa midda dalalka caalamka ku soo jeedisay horumarka difaaca ee Turkiga. daroontan ayaa sidoo kale dhulka la sintay awoodda hogaamiye kooxeedkii Liibiya ee Xiftar ee mar gacanta ku hayay inta badan dhulka Liibiya. sidoo kale daroonta loo yaqaano Wing ee Shiinaha ayaa iyadana ka mid ah noocyada loogu iibsiga badan yahay waqtigan. Iiraan ayaa iyaduna suuqa la timid noocyo kala duwan oo daroonno ah oo qaarkood ismidaamin ah, iyada oo isku qarxisa bartilmaameedkeeda halkii ay ka soo noqon lahaydna sida gantaalkii u qaraxda. waana nooca uu Ruushku dhowaan ku weeraray goobo muhiim ah oo ku yaala caasimadda Ukraine ee Kiev. ciidamada difaaca ee dalalka dunida ayay lama huraan u noqotay haysashada daroonta si la mid ah qalabka kale ee difaac. daroonta ayaa gashay booska diyaaradaha qumaatiga u kaca ama loo yaqaano helikobtarka, iyadoo inta badan loo isticmaalo in dusha sare ay ka taageerto ciidamada lugta. sidoo kale waxay si fudud u weerari kartaa xarumaha cadowga. daroonta ayaa yaraysay in askartu ay si toos ah isku wajahaan cadowga, waana sidii lagu arkay dagaalkii Karabakh ee 2020. daroonta Bayraktar oo si farsamo leh dusha sare uga tooganaysa taangiyada Armenia. sidoo kale markii xukuumadda Abiy Ahmed ee Itoobiya ay u tabarweysay jabhaddii Tigreega, waxa ugu dambayn guusha siiyey droniskii ay ka soo iibsatay Turkiga iyo Shiinaha, kuwaasi oo dhulka la simay awooddii ciidan ee jabhadda iyo gaadiidkoodii dagaalkaba. mustaqbalka waxaa aad loo saadaalinayaa in iibsiga dronisku ay noqdaan qaybta ugu badan ee miisaaniyadda difaac ee dalalka. suuqan ayaa lagu qiyaasaa in sanadka 2027 uu gaari doono ilaa $30 bilyan. internetka xawaaraha sare ee 5G iyo aaladaha caqliga macmalka ah ee loo soo gaabiyo AI-ga ayaa la filayaa in horumar ballaaran ay ku soo kordhin doonaan isticmaalka droniska, iyaga oo xoojinaya awoodda fogaan arag iyo maamulidda daroonta oo labaduba muhiimad gaar ah u leh. waxaa sidoo kale la saadaalinayaa in aad loo kordhiyo farsamaynta droniska ku shaqeeya qorraxda, taasi oo kordhinaysa waqtiga ay daroontu hawada ku jiri karto, waxaana meesha ka baxaya qarashka ku baxa awoodaha kale ee tamarta ee ay u baahan yihiin dronisku. sidoo kale waxaa xal loo heli doonaa awoodyarida waxqabadka droniska ee ah in si fudud raadaradu u qaban karaan una soo ridi karaan, maadaama inta badan droniska noocyada waaweyn ee hubka qaada ay ku socdaan joog dhexe oo hubka ridada dhexe iyo kuwa ridada dheerba ay gaari karaan.